gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda gudoomiyaha hay'adda maamul wanaagga agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha agaasimaha guud ee hay'adda shaqaalaha agaasimayaasha waaxyaha kala duwan ee wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha shaqaale weynaha halkan fadhiya ee maanta mutaystay abaalmarinta ee wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha saxaafadda madaxa bannaan dhammaantiin waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta waa ay bishan tahay sanadka bisha labaad ay tahay 2025 waxaynu halkan u fadhinaa inaynu abaal marino shaqaalihii mutaystay shaqo wanaag shaqaalihii u wanaagsanaa maaha shaqaalihii mutaystay shaqo wanaag ee ugu mudnaa aynu abaal marinaynaa waxaan balyaynayaa waaxda maamulka arrimaha shaqaale ee wasaaradda maaliyadda iyo intii la shaqaysay ee wasaaradda joogtay inay soo xulaan haddii aan tix raaco hadalkii agaasimaha waaxda weerax sidoo inoo sheegay shaqaalaha la abaal marinayaa waxay isugu jiraan shaqaalihii hoose ilaa shaqaalihii sare saraakiishi sida uu soo xulay tirooyinka soo xulay iyo habka uu soo xulayna waynu ku hambalyeynayna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin dadkii ugu horreeyay madaxdii ugu horreysay baa si fiican u hadashay laga bilaabo cabdiraxmaan oo wacdigii inoo jeediyey agaasimihii guud iyo agaasimihii waxda shaqaalaha gudoomiyaha hay'adda maamul wanaagga iyo gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dhammaantoodba sida wanaagsan ay u hadleen waan ku hambalyaynayaa meelihii ay farta ku fiiqeenna dhammaantood iyo talooyinka soo jeediyeenna sidooda ayaan u qaadanaynaa waanu fulayna wuxuu sheegay agaasimaha waxda shaqaaluhu in uu ka codsaday gudoomiyaha shaqaalaha in dalacaadihii ay mutaysteen soo saama shaqaaluhu 2 sanadood taana gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha ka wada shaqayn doonaa shaqaaluhuna dalacaadooda inay helaan ayaan insha Allah ka rajaynayaa gudoomiyaha iyo xafiiskiisa dhammaanteen waxaanu adeega umadeed balwa dhammaanteen ilaa madaxweynaha dawladda dadka u shaqeeya dhammaantood waxay shaqaale u yihiin adeega ay u yihiin ummadda ayay u adeegayaan waxaa laynooga baahan yahay dhammaanteen ummaddaas aynu u shaqaynayno inaynu si daacadnimo ah oo karti leh aynu ugu shaqayno maadaama aynu inagu xilkaa qaadnay innagaa xilkaa qaadnay oo dooranay inaynu u shaqayno ummadda oo aynu u adeegno ilaahayna wuu ina arkaya waxaan hoosta ka xariiqayaa hadalkii cabdiraxmaan agaasimaha waxda kastamada ee ahaa in adduunyada in yar la joogayo adduunyada yar baa la joogayaa intaa yar la joogayo way kooban tahay waxaa laga yaabaa qofka maanta halkii joogay noogu yar inuu yahay 30 jir baan ku qaasi karaa maanta intuu sii joogi karaa waa in intaa labalaabkeed marka la eego da'dii ku dhintay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ahayd 66 jir oo ah qaalib al-umriga inta yani ummadda islaamka ah waan arkaysaa inuu hadda imika eegto dadkii markaad eegto average-ka celcelis ahaan markaad eegto dadka wax 60 ka weyn way yar yihiin haddaanu nahay mas-uuliyiintii u sarreeyay wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee gaar ahaan maamulayay ee hoos imanayay shaqaalaha wasaaradda maaliyadda waxaan ku dadaalaynaa inaanu si cadaalada aanu idinku maamulno oo aanu idinku qof kasta aanu ku qiimayno waxa uu mudan yahay ee uu xaq u leeyahay hal mushkilad baa jirta oo meel walba taalla waxa kala badan shaqadii iyo shaqaalihii baa badan oo shaqaalihii baa yar si shaqaaluhu ay u helaan fursad waxaanu ku dadaalaynaa inaanu ballaarino shaqada la qabanayo
shaqada wasaaraddu ay qabanayso aanu balaarino ee cashuur ururinta khaasatan waaxda cashuuraha beriga inaanu balaarino si ay shaqaaluhu ay helaan chance ay ku helaan inaanu korino waaxyaha kala duwan ee wasaaraddu ay ka kooban tahay shaqada ay qabanayaan oo aanu isku daynayno horumar gaarsiino dhammaantiin waxaan ku codsanaynaa inaan si wanaagsan oo la shaqaysaan annaguna aanu si wanaagsan idin hogaamino waxaanu isku dayi doonaa shaqaaluhu inay helaan meel ay u soo gudbiyaan wixii ay tabanayaan waxaanu isku dayaynaa shaqaalaha inaanu ku tababarno xeerka shaqaalaha waxay xaq u leeyihiin iyo xaq loogu leeyahay oo qof kasta uu ogaado maxaa adiga xaq loogu leeyahay aduna maxaad xaq u leedahay oo xeerka shaqaalaha dowladda iyo xeer nidaamiyaasha wasaaraddu ay diyaarisay in dhammaantood shaqaalaha la wada gaadhsiiyo waxaan isku dayi doonaa meel kasta oo xafiis wasaaradda maaliyaddu ay ku leedahay uu ka furan yahay inaan gaadho oo aan soo arko insha allah binaadam intaas ayay kusoo gabagabinayaa wada shaqayn fiican iyo inaynu horumar gaadhno iyo dalkeenna u adeegno iyo dadkeenna u adeegno asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu